kuna wanaagsan daawadayaal halkani waa caalamka TV waxa la yiraahdaa intii la garanayay baashu way soo dhaaftay markaas xaaladda bariga dhexe waxaad moodaa in maalinta ka dambaysa birqsiga ka dambeeya lugaha la sii galayso umuro xasaasiya iyo dhacdooyin ay adag tahay in dib looga soo kabdo markaas warkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan Iran oo qaaday talaabo argagax lagu tilmaamay caawa isla markaana gibi ahaanba mandiqada oo dhan rogtay kadib markii si toos ah u duqeysay saldhigyo Mareykanka oo ku lahaa wadamada Ciraaq iyo waliba wadanka kale ee Qatar dabcan waxa la tilmaamayaa Qatar in la duqeeyo markii ugu horeysay ay noqonayso taas oo indhaha caalamka oo dhan soo jeedisay markaasi haddaba warbaahinta caalamka iyo tan Mareykanka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay dhacdadan iyo waliba markaasi dawladda Iran ilaaladeeda kacaanka ciidamada oo iyagu markaa bayaan soo saaraysa markaana saacad uga hadlay warkii ugu dambeeyay iyo waliba xogihii markaa update-ka ay hadda soo kordhay ayaan diradda ku saari doonaa xubintan degdeg ah haddii aad nagu cusub tahay fadlan halkan waa caalamka TV subscribe saaro channelka si share garasi aysan ku dhaafin dhacdooyinkii waliba wararka kale ka dhacaya caalamka haddii aanu ku bilowno telefishinka wadankaas Iran ayaa waxa uu isagu baahiyay war weyn oo ahaa halkii ugu horeeyay laga maqlo in uu bilowday howlgalka loo yaqaano Bashar al-Fatah kaas oo ay ujeedadoodu ahayd inay ku weeraraan saldhigga ciidamada Mareykanka oo ku lahaa saldhigga koowaad ee la weeraray wuxuu ahaa saldhigga Cudayd markaasi ku yaala wadanka Qatar waana saldhig kamid ah saldhigyada markaasi sanado badan markaasi Mareykanka oo ku lahaa isla markaana kamid ah kuwa ugu waaweyn aadna istaraatiijig u ah meelo badan oo markaa Mareykanka uu ka duulay ama howlgallo ka fuliyana waa halkii laga duulayay markaasi waxa jiray saacadihii la soo dhaafay gaar ahaan labadii cisho ee la soo dhaafay in dhaqdhaqaaqyaalka ay ka socdeen isla markaana wixii diyaarado halka yaalay laga qaaday isla markaana loo wareejiyay garoonka Amir Sultan ee dalka Saudi Arabia inta wixii ka dambeeyay waxa dhacday markaasi in weerarkii markaa nuclearkii iyo goobihii Iran ay lahayd ee warshadaha bacriminta hubka ee Fordo iyo waliba Natanz iyo Isfahan si toos ah loo weeraro kadibna Iran waxay ku dhawaaqday inay ka jawaabi doonto isla markaana weerar xoogan iyagu ay qaadi doonaan waxa yimid markaasi jawaabtii iyagu ay bixinayeen jawaabtaas oo noqotay in si toos ah loo weeraro saldhigyo ilaa hadda waxa la tilmaamay inay ku dhaceen 6 markaasi gantaal oo balastiga isla markaana ah kuwa aan sahlanayn marka la eego gantaaladaasi waayo waxa la tilmaamayaa in dawladda Qatar oo markaasi kamid ah dawladaha istaraatiijiga aadna ugu muhiimsan in marka la weeraro waxay ku tusinaysaa in sheekadu ay ka sii dartay isla markaana xaaladdu ay faraha ka sii baxday markaa wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in marka goobaha la weeraray aysan ku jirin goobo madaniya wakaalada wararka ee dalkaasi Iran waxay sheegtay marka in si toos ah loo weeraray goorweyd Axios oo hadashay waxay sheegay marka maamulka Trump inay u diyaar garoobeen weeraro marka Iran ka yimaada isla markaana saldhigyada Mareykanka ee Khaliijka uu ku leeyahay la weeraro Wall Street Journal oo kale waxay tilmaamaysaa Iran in markaas iyaguna ay haddaba u wareejiyeen marka la eego meelo horle iyagu ay markaasi u wareejiyeen goobihii laga tuurayay gantaalada si ay saldhigyo kale u weeraraan waxa la tilmaamayaa howlgalkan in uu isagu ahaa mid markaa dhowr iyo 10 gantaal la soo tuuray laakiin qaarkood hawada lagu qarxiyay wararku waxay tilmaamayaan ilaa 3 ilaa markaa 6 gantaal ayaa lagu qiyaasay tirada halka ku dhacday Iran waxay Axios oo kale waxay sheegaysaa Iran 6 gantaal inay ku tuureen saldhigaasi tirada asiibtayna ilaa hadda aan la garanayn markaa ciidamada qalabka sida Iran waxay sheegeen howlgalkaasi inuu bilowday aanan mid looga jawaabayo weerarada Mareykanka dhawaan uu ka geystay gudaha dalkaasi Iran wasaaradda difaaca dalka Qatar oo iyadoo hadashay waxay ku tilmaantay weerarkaas in uu ahaa mid baahalnimo ilaahay fadligii ciidamada qalabka sida iyo waliba markaasi qoliyaha ka hortaga qataraha waxay tilmaameen in wax dhacday aysan jirin dhaawacyo ma jiraan wax markaa dhimasho ma jiro dawladda Qatar waa dawlad amni ah bay tilmaantay isla markaana waxay tilmaameen ciidamada qalabka sida ee Qatar in ay heegan ku jiraan muwaadiniinta iyo waliba dadka deganna waxa la tilmaamay inay raacaan fariimaha badqabka la xiriira sidoo kale dawladda Imaaraadka Carabta ayaa la tilmaamay in hawadeeda ay xirtay sida wakaalada wararka ee Reuters ay ku waramayso markaasi Qatar ayaa si toos u cambaareysay baa leeyahay bayaan kale oo labaad oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda waxay ku sheegeen marka in ciidamada ilaalada kacaanka dalkaas Iran ay weerar ku qaaday weerarkan uu isagu yahay mid ka hor imanaya ama xadgudubka madax banaanida dawladda Qatar iyo waliba hawadeeda iyo waliba qaanunka caalamiga waxa sidoo kale lagu weeraray bayaankan markaasi dawladda Qatar dawladda Iran waxana la sheegay inay tahay dawlad markaasi
qatar marka halis talaab halisa qaaday halisna marka u keenaysa gudaha mandiqada bariga dhexe waxayna sheegeen inay ka jawaabi doonaan oo xaq u leeyihiin iyagu inay jawaab bixiyaan golaha amni qowmiga dalkaas Iran oo iyagu fariistayna waxay sheegeen howlgalkan inuusan ahayn mid qatar lagu gelinayo dawladda qatar ee saaxiibaha iyo walaalada ay yihiin isla markaana wax qatar aysan ku jirin markaasi NBC oo kale waxay ku waramayaan Trump iyo wasiirkiisa difaaca haatan in shir degdeg ay ku leeyihiin markaasi oo ay ka wada hadlayaan bal waxa laga yeelayo waxa dhacay iyo waliba tallaabooyinka la qaadi karo ciidamada ilaalada kacaanka waxay tilmaamayaan in markaasi fariintan ay ku socoto aqalka cad iyo waliba xulafadiisa Iran inaysan ka tagi doonin gaboodfal loo geysto dadkeeda iyo dhulkeeda markaasi waxaana markaa la tilmaamayaa fariimaha goobaha nuclear-ka lagu baabiyay in ay tahay mid jawaab cad laga bixinayo isla markaana aan marna aysan noqon doonin mid jawaab la'aana markaasi waxay tan imanaysaa waqti Iran maanta ay ku asqaysay weeraro ama ay ku baabiisay meelo badan oo ay kamid tahay goobihii korontada iyo waliba kuwa kale oo muhiim ah dalkaasi ama marka dhulka la haysto ee Falastiiniyiinta wixii warar ay ku soo kordha halkan baa kaga bogan doontaan channelka subscribe saaro si share gare mahadsanid